laga yaabaa inay hal bood soo diraan dowladana ay ka iibiyaan shacabka oo gaariga ka wada fadhiyi ilaa lacag siisaan maashubayo biyaha oo tii aan umusha biyo loo haynin oo waxay ilmihii afka laga saara ama hooyada afka looga saara lahaynin macnaa hadda inaan dawladda ama qof wacno oo kale anteen la-aan aan kula soo hadalno ama aan qofkii kula soo xidhiidhno ma haysano. bulshada ku dhaqan santarka Golley ee degmada Danood ee gobolka Doolo waa deegaanka Soomaalida ayaa dhaxda u xidhay inay qotaan ceel biyood kadib markii abaartu si baahsan ugu faaftay dhammaanba dawladda deegaanka Soomaalida. sidoo kale shacabka ku dhaqan santarka Golley ee degmada Danood ayaa waxay aad uga cawdeen darawaliinta wada gaadiidka booyadaha taasoo ay sheegeen inay ka iibiyaan biyaha gurmadka ah ee loo soo diro shacabkani abaaraysan. sidoo kale cabashooyinka aanu qabno haddii aanu baaq u diri lahayn xukuumadda iyo dhammaan cid walba ay khusayso ma haysano adeega qadka taleefanada. walaal qoysaska barakacay ilaa 500 oo qoys ama 600 oo qoys haday ka badnayn ba hadda barakaca way joogaan xoolaha saameeysan dhammaan qoolihii santarada ku dhaqanaa ama xaalkeeda deegaanka oo dhan kulli way wada saameeysan ama geer ha noqdo ama loo ha noqdo ama ari ha noqdo shada ku dhow santarka Golley ama santarada u dhaweey xawaaraheeda sida Cali Barre iskoyska oo kale abaare aad u baahsan baa ku jira sida uu ogtahayba abaarahaas oo hadda in bariyaaba haysay dhalinyaro ahaan ama dad ahaan ma shacab ahaan in badan aan ka hadalay oo ama dawladda fariin u dirsanay ama shacab ahaan qoraallo aan soo diray baa jira welina jawaaba kama hayno abaarta jirta awgeed shacabkii markay diyaaraantii jirtay iyo xiyaalihii jirtay ay arkeen ba ceel biyood hadda ka hor dawladii hore ay calaamadaysay bay gacantooda ku qabteen welina ma hayno shacab ahaan ama anagu intan tabartanada waan qodaynaa dawladii ama degmo ahaan degmada Danood ama gobol ahaan gobolka Doolo anagu hoos tagno iyo caasimadii deegaankeena laga xukumay weli kama hayno baaqiyada u dirsanay ama cabashadana waxyaalihi aan u dirsanay wax jawaab oo naga soo jawaabo ma haysano way naga gaabiyeen bad moodaa 100% garanaysaa shacab meermiyo gacan ku qabanaya ceel oo haysan waxyaalihi asaasiga ee ceelka lagu qodi jiray waad ka garanaysaa baahida haysa ama se u rafaasin yahay adoo iska dareemaysaa santarada degmada Danood hadda anagu degmada Danood markaan kasoo qaato santarro badan oo laga qaxay baa jira santarka Cali Barre santarka iskoyska xidho santarada Golley tuulada fle santaradaas oo dhan oon daraadeed ama abaarta saameysay daraadeed baa laga qaxay oo meelaha ay wax ka helayaan oo kale caawinna weli ay wax soo gaara gargaar ama dawladda ah ama hay'adaha ah ama qurba joog ahaan wax weli ma soo gaara ma hayno. bulshada inteeda ku harsan Golley iyo xoolaha nool ee imika jooga Golley ee habaarta ka soo haday maxay ku sugayn maxay ku nool yihiin walaalo waxay ku nool yihiin aalad aad u xun bay ku nool yihiin dadkii oo aan dab shidanin dadkii oo waxa la iska biyaala hooyooyinkii Soomaaliyeed oo tii aan umusha biyo loo haynin oo waxay ilmihii afka laga saara ama hooyada afka looga saara lahaynin abaar aad u baahsan baa ka jirta caruurtii oo biyo la-aan hooyooyinkii oo tii umusha meel la geeyaan haynin talabaad anteen ma haysano aan kula hadalno haddaan macnaa hadda inaan dawladda ama qof wacno oo kale anteen la-aan aan kula soo hadalno ama aan qofkii kula soo xidhiidhno ma haysano haddaan santarada aanu nahay ceel ay gabdhahooda ku qodanayaan oo isku tashi ay dadkii de markii wax usoo gurmado waayeen ee dawlad waayeen ay ku kaliftay doonto inay gabdhahood ceel ku qotaan oo bilaabaan hadda ay qotaan goobta aad ceelka aad ka qodanaysaan ee isku tashiga aad ku hirgelinaysaan ayaa sahamiyay goobtaas inay biyo leedahay xukuumadii hore saamisay walaal xukuumadii hore ayaa saamisay marka waxay dhaheen wuxuu jiraa 70 mitir buu jiraa bay dhaheen marka hadda ka hor madaxweynaha deegaanka Soomaaliya ku yimaaday gobolka Doolo iyo ballan qaaday odayaal la kulmay inuu ka qodayo Golley ceel mana suuragelin inuu ka qodo ilaa waagii oo doorashada ka hor dhowr sanad ay ka soo wareegtay marka dad la caawinayo oo biyo la iyo tan hadda ceel ku kaliftay ma jirto markay bulshadooda wax caawiya oo biyo siiya oo xagga dawladda ka caawiya yaa waxay dad ku kaliftay in ay ceel gumxooda ku qotaan xilligan abaarta adag ee lagu jiro iyo duruufaha jira daraadood bulshada ku dhaqan Golley waxay u badan yihiin xoolo dhaqato xageebo ku sugan yihiin waqti xaadirkan xoolahoodu miyiga iyo agaarka Golley ku sugan yihiin wax hadda Golley waa u dhinto waa biyo la'aan caawisa ama degmo ay ka tirsan yihiin ma jiraan bil markii la joogaa laga yaabaa inay hal bood soo diraan dowladana ay ka iibiyaan shacabka oo gaariga ka wada fadhiyi ilaa lacag siisaan maashubayo biyaha ilmaha haddii loo sheegana waxay isla ogyihiin waxba kama qaban karaan biyihii degmada aad ka codsateen marka la idiin soo diray darawalka gaariga wada ayaa waxa uu rabaa inaad ka gadataan biyaha oo lacag ka siiyo sidaas miyaa ula jeedaa ma shubayo u dhahay biyaha ilaa lacagta isiisaan markii degmada lagu ceelo dhaho biyaha ma soo dirtaan gaariga lacagna qaadayaan waxba kama qaban karaan waxay isla ogyihiin dadkan wada cadibane abaaruhu ku ciire ila caawinaba cid kastoo
wadani iyo caalamkaba ku waajiba